horena waan idinku sheegay geeyigan Soomaaliland waxaan nidhi waxa ku nool 3 milyan iyo bar qof waa sida ay sheegayaan warbixinii ugu dambeeyay ee la qoray 3 milyan iyo barka waxa la yidhi 2 milyan waxa la yidhi 7% waa dad 35 jir ka yar taasoo macnaheedu yahay marka 2 milyan iyo 450 kun oo qof inay dhalinyarada Jamhuuriyadda Soomaaliland oo ay ka yihiin dadka da'da 35 jirka hadday sidaa tahay waxa weeye macnaheedu 2 milyan iyo 450 kun oo qof ayaa noqonaya hogaamiyayaashii maanta iyo bari ee Jamhuuriyadda Soomaaliland marka laba kala maarmaya maaha hadduu doonayo hogaamiye inuu Soomaaliland ka soo dhex baxo 2 milyan iyo 450 ka markuu hanto ayuu kursiga fuuli karaya sidoo kalena fursadda hadday dhalinyaradu awoodeeda fahamto hogaamiyaha Jamhuuriyadda Soomaaliland wuxuu ka soo dhex baxayaa 2 milyan iyo 450 kun oo qof waayo dadkii inta hadhibaaba yar baday marka sidaasay labada arrimood isugu lamaan yihiin waxaan doonayaa walaalayaal inaan idin xasuusiyo waan ogahay oo waa leedin jabiyay waxa tihiin dhalinyaro lagu soo barbaariyay hal ku dhig baana oo muxuu hal ku dhigaas yahay waxa tahay hogaamiyihii bari waxa la haraa kelmadda muhiimka ah ee macnaha sameynaysa waxa tahay hogaamiyihii bari iyo maxay iyo maanta marka nin doonaya inuu ku khiyaameeyo ayaa kelmadii nuxurkuba ku jiray kala hadhaya markaasuu wuxuu ku sheegay hal ku dhig kaliya too amahay waxa tahay hogaamiyihii bari baa tahay iska suweeyay macnaheedu marka waxaan u arkaa inaad tihiin dad la khiyaameeyay in badan baa sugteen maalinta bari inay timaado in badan baa sugteen waliba dhalinyarada cuslaatay anigu aan ku jiray makadadii dhalinyarada ka baxday ee lagu soo anqariyay kelmadda ee loogu celcelinayay dhowr iyo 40 sanadood wali maalintaas way iman laadahay laakiin waanu samirnay oo waanu sugnay waxaan kelmadda caawa u xusayaana waxa weeye adigu inaan anigoo kala noqon waayo anigu ma nasiib badnayn dhowr iyo 40 sanadood baa laygu leeyahay hogaamiye bari baa tahay barina ma imanayso marka aniga jiilkayga hadday noqdeen qaar aan ka gilgilan oo ka hadal oo ku darsan waxaanu nahay cod dheer aan ku odhan waxaanu nahay hogaamiyaashii bari iyo kii maantaba haddana nasiib ka helin idinkaan rabaa oon caawa doonaya inaan idinku xataxateeyo inaad tidhaahdaan marka la idinku idhaahdo hogaamiyaashii bari ee siyaasigeeda la hadlaya uu la hadha kelmadda waar ku dar iyo weliba hogaamiyihii maanta sidaad ku tahayna waan sharaxaya waan sheegaya waan ogahay oo waxa idin mashquuliyay arrimo muhiim oo ay ahayd inaad wax iska weydiisaan waxa idinka mashquuliyay culayska idin haysta ee idinka haysta maxay shaqala'aanta xarkaha goosatay ee xad dhaaftay Soomaaliland ka jirta culayska idinka haysta jaamacadaha aad dhigataan lacagta qaaliga la idinka qaado culayska idinka haysta dugsiyada sare ee dhigataan lacagta la idinka qaado iyo waliba curriculumka imika la idinka iibiyo oo intuba culays soo kordhaya waxaan ogahay in tiro badan oo ka mid ah dhalinyarada Jamhuuriyadda Soomaaliland ay quusatay rajo dhigtay oo ay micinsadeen gidaarada iyo jaadka xalku laakiin sidaas maaha waxaan doonayaa 4 arrimood haddaad dhalinyaro tahay oo doonaysa inaad noqoto hogaamiyihii maanta 4 arrimood inaad xoogga saarto nolosha waxa uu muhiim ah inaad ka yeelato horta hamigaagu waa inuu farbataad waa in riyootaa dhalinyarada u tahay inaad hamina yeelato riyana yeelato qofku haddaanu riyoon haddaanu hamiin dhalinyarana yahay waxba ka siya waxa kale oo u baahan tahay inaad himilo leedahay higsi sugan leedahay hiiraal fogna ku calaamadsan meel fog oo durugsan oo nolosha uga socotaan ay ku calaamadsan tahay marka aad leedahay hiiraal aad u fog meel fog oo ku suntan oo u socoto nolosha uga socoto ayaad gaari kartaa oo adkaysanaysaa turanturooyinka waayo jidka dheer ee nolosha loo marayo waa la kufaa waa la dhacaa way xumaataa way kharibantaa way niyad jabaysaa mararka qaar kood waxaad gaaraysaa inaad quusato
laakiin markay meel ku calaamadsan tahay xigmadu waxa weeye weliga ayaa laha socodka joojin maysid waayo meel ku calaamadsan baa jirto oo nolosha kaaga suntan haddaad rabto inaad madaxweyne noqoto ilaa aad madaxweyne noqoto fadhiisan maysid haddaad rabto inaad dhakhtarad noqoto ilaa aad dhakhtarad noqoto fadhiisan maysid haddaad rabto inaad daabshiilka Soomaaliya noqoto ilaa aad lacag samayso taaj noqoto fadhiisan maysid haddii sirriyadaadu ay yarayd hamigaaguna yaraa meel aad u socotaana jirin noloshana himilo aanad ka lahayn higsi iyo hidaalla aanay ku calaamadsanayn macnaheedu waxay noqonaysaa markaa maalinba waxaad doonto inaad qabato waxaana iman doona markaasi inaad shaha wareerto inaad dawaqdo jidka inaad ka lunto oo halkii aad uga socotay bari galbeed aad u dhaqaaqdo waan ogahay su'aalo badan baa madaxiina ka guuxaya waxaan ogahay inaad madaxiina ay ku jiraan su'aalo fara badan waxaad u baahan tihiin jawaabo laakiin nasiib daradu waxay tahay madaxdii su'aalaha adag ee haysan idinka jawaabi lahayd wali ma haysaan sidoo kale dhibaato kale la nooshiino mushaakilaadka dhalinyarada haysta meelo idinka idin gaaro idinku leedin oo mushkiladiina ku gorfaysaan layna mana samayn mana haysataan idina maydaan samaysan laakiin imika dadaal baa bilaabmay kuwan baa kamida Sonia kamida ururada kale faraha badan ee dhalinyarada oo doorkooda fahmo oo qaata kamida laakiin doorkaas waa gaabis weey waxaan doonayaa walaalayaal inay la fahamtaan mas'uuliyad baa nasaaray inta idinka waaweyn anigu aan ugu horeeyo waxay ahayd inaanu idin sii diyaarino laakiin nasiib daradu waxay tahay madaxdiinina idinmay diyaarin kuwa iyagii qaylinayna kuma aanan guulisan qayladu inay idin soo wada gaadho waxa laga yaabaa markay saa tahay eegta arintu markay saa tahay waxa ku hor imanaya markaa haddii lagu diyaarin waayey awooddaada la dhisi waayey xogtaad u baahnaydna lagu siin waayey maxaad yeelaysaa hortaada imanaysa hortaada waxa imanaysa maxaad yeelaysaa su'aalahan baa markaa hortaada imanaya qof kasto dhalinyarina uu isweydiiyaa maxaad yeeli markay ku hor timaado waxaad oranaysaa warkaan war miyaad sugi miyaad quusan miyaad suudali oo iskaga hajiri Soomaaliland miyaad iska qayliyo gidaar baad iska fadhiisan mise waad waalan ilaa dhalinyaro badan baa markay say u qaylisay quuso haayeen ka wada dhigay haddii su'aaluhu ay saa kugu yara noqdaan ay soo kankanmaan markaas kugu soo adkaadaan jawaabtu aad soo qadimaysaa waxa weeye maya waayo sabab baa jirta aanay ahayn bayna su'aalaha isu weydiiso haddaad ummadan ka tahay 70% oo tirada ninka beeninaya aniga dahay yimaado waxa qudhaatay tirada lagu beenin karaya waa maxay tirada waxa lagu beenin karaya waxa lagu beenin karaya oo kaliya ta reportkii UNDP iyo wasaaradda qorsheynta qaranku ay qoreen inagu dhaadaan waa been oo tirada jumhuriyadda Soomaaliya 3 milyan iyo bar maaha waxaanu qornay intaas oo kaliya ta beenin karta laakiin figuriska iyo factska aanu hayna waxa weeye in 70% shirista jirkeena Soomaaliya reportkuna saas u sheegaya wixii dambi halka ka yimaada aniga la raaci maayo xogta qoran baa loo raacaya way hadda tirada tahay marka tirada hadda tahay waxay ahayd awood inay gacantaada ku jirto laakiin ogaal baan ahayn awooddaana fahmin sida Soomaaliland aqoonsiga u lahayd aqoonsiga u lahayd wali waana aqoonsan arin kale oo lagu celceliyo oo inta badan laga hadlo marka imaka ay weydiinayo hogaamiyaha iyo hogaaminta waxa laga yaabaa dadku waxay isku qaldaan qofka madaxweyne noqdun baa hogaamiyaha qofka xisbi gudoomiye ka noqdun baa hogaamiyaha fahamkiinu masaasa ya bal ii sheeg hogaamiyaasha kale jira sheegade qof iyo laba ha sheegaan way badin way waa kuwe taas su'aasha isku dayna ka jawaab hogaamiyaashu way badin qof kasta oo bulshada ku leeyahay toban ku soo way hadii aad qabtay wada ku wanaagsan doorka bulshada ku leeyahay soo taxaab way dad macallin wanaagsan doorka macallin waalid haddaad maamulatay way inaad maamulat marka qof kasta oo bulshada kaga jira iyo hogaamiyihiisa alxamdulillah su'aashu waxa weeye silent leaders baa jira hogaamiyayaal ka muhiimsan kuwan aad taqaano ayaa jira waalidka kamid ah ilmaha yar soo barbaarinay macallinka kamid ah iskuulka wax kuugu dhiga social workerada enjoyada maamulaha kamid ah fanaanka kamid ah abwaanka kamid ah
sheekha kamida waxa laga yaabaa markan saa kuugu dhigayna taa si hogaamiyaal u yihiin soo hogaamiyu maaha qof followers leh oo cid daba socoto oo cid u qushuucsan tahay oo cid u bogtay oo cid raali ka tahay oo cid ku dayata Soomaha xidiga geesku imka haday soo galaan halkan miisigooda laga shido inteena buu madaxayna loo xanaa Soomaha macallimiintaada soo ma jecelido markay wax ku dhigeen dhagaha u marhareeysin kan social worker kinada isbedelkii loo baahnaa bulshada dhexdeedu keenaya marka hogaamiyin markaynu ka hadlayno lagama hadlayo madaxweyne iyo wasiir iyo hogaamiyaasha xisbiyada lagama hadlayo waxa jira hogaamiyaal dahsoon af Soomaaliya iska noqonaysa dahsoon oo ka muhiimsan oo haya shaqo ka muhiimsan shaqada ay hayaan madaxdan in maqana marka la ugu tahay tirada ummadda intii badneed marka tahay xaqiiq maxaa hogaamiyaasha ugu faraha badani waxay ku dhex jiraan dhalinyarada Jamhuuriyadda Soomaaliland Soomaa ay ku dhex jiraan hadii lagu harowsaday oo lagu khiyaameeyay inaad tahay dhalinyaro oo dhalinyaraduna aanay xaq u lahayn inay hogaamiso qarnigan lagu jiro iyo maalinta la joogo ma shaqeynaysa aragtidaas waanaynu cadaynaynaa inaan shaqeynay waxaan ku cadaynaynaa maanta walaalayaal waxa jira dhalinyaro aad u yar oo wadamo waaweyn hogaamisa haddaan soo qaato Joseph Kabila Congo dhowrisadun jir buu ku noqday madaxweynaha wadanka Congo oo wadan weyn oo Afrika ku yaala oo qaniya haddaan soo qaato ninka duuda la yiraahdo oo isaguna prime minister ka wadanka Poland haddaan soo qaato Antifete oo ka Kosovo gabadhaasina waxay prime minister oo bari iyo saad dambe iyo saakuun iyo 5 sano iyo 10 sano wuxuu noqonayo garan waayo maxamed xajibaan cigaal Allah oo naxariisto damigiisana Allah dhaafo hogaamiye wanaagsan oo ina soo maray buu ahaa intii dunuub galay madaxnimadu way iska dambi badan tahay Allah ka dhaafo isagoo aad u yar buu abiyo yaaray waa an example aan idin siinayo abiina maqasheen ma taajir buu ahaa dadkii Soomaaliland ugu ladnaa buu ahaa lixnaadkii abiyo wuxuu doonayay maadaama uu yahay inanka qudhaatu leeyahay inuu inankiisa ka dhiga ganacsade si uu xoolaha iyo adduunka uga dhaxlo maama hajiraan cigaal hadal buu ku yiri waana qoran tahay aabbo daarahaaga iyo adduunkaaga midna ma doonayo muxuu ku yiri waxaan doonayaa aabbo inaan magacana yeesho Soomaalina u taliyo badeeg waa dhowrilaatan jir weey dhowrilaatan sano isagu jir soo hadlaya maxamed hajiraan cigaal maalintu dhimanay madax buu ahaa Soomaaliland iyo Soomaalina uu taliyay sidaas oo kale la doonayaa qofka dhalinyaradii marka la isoo barbar dhiga shilimaanta iyo go'aanka halka nolosha uga socoto inaad kala doorato miyaad awood u leedahay inaad kala doorato 20 milyan 50 milyan trillions shadad ku jira in lagu dhiibo oo lagu dhaariyadaada iska daayo kaalayo daabshilki Soomaaliland noqo miyaad oran kartaa adeer 2 milyanskaaga iyo trillions-kaaga iyo shadadaada iska hayso tan baan doonayaa inaan madax ka noqdo bedelay lacagtaadana ma rabo war ilaa halka ay ku gaarsiiso riyadu oo riya aad ku adag tahay aad yeelato qofka doonaysa noqotana ma noqonaysid anu dadka mooda liida siyaasiyiin ha wada noqdaan waxaan leeyahay macallin hadaa doonayso macallinimada kaga dhabo macallin ugu wanaagsan noqo waxaad ku faantaa 35 sano jaamacadda Hargeysa wax ka dhigay 40 years baan lecturer ahaan jaamacadda Hargeysa wax ka dhigay dugsiga sare Faarax Omar baan macallin dugsi sare ka chemistry physics biology 20 years 15 years war halka doonto urur bulsheed samee kamida dhali halkaaga ku adkayso fanaan noqo abwaan noqo sheekh noqo dadka wacdi waxa doonaysa bal adigu noqo ganacsado noqo waxa doonaysa noqo adigu yo inta yartahay horta calaamad saday ha iska noqonin xitaa waxbarashadaadu waa inay ku dhisnaataa halka doonaysa inaad gaadho business management baan bartay political science baan bartay ama engineer hadaad ku tahay noloshaada maxaad ka doonaysaana waxaan uu bartay wuxuu doonayo noqdaa isma laha hadaad tiraahdo maxaad u baydhay sababta ku sheegi kari maayo maanta hadaad doonaysaa dhakhtar noqoto dhakhtarkaaga hoodee ummadda dawe caruurta dawe hooyada dawe kliniga ugu wanaagsan ee adduunka looga yimaado riyada la noqoteen Soomaaliland ka samayso
cibaadada ilaali hogaamiye bilaa diina Soomaaliland meel ma geynayo arrintan oo ku celiya ammaanada iyo diinta ayaa ka mudan aqoonta qofkii murmayo deeqaalayo soo baxday qofku goorma ammaano ilaaliya markuu diin leeyahay Soomaa qof midaan salaad tukan oo diin lahayn oo ammaano ilaalin markaad wasiir ka dhigtay muxuu ku ilaalin ilaahay ma isma yaqaanaan hana sida kan gaalkaana dib lagu ma soo korin edaab lagu ma soo korin xoolaha ummadda iyo wixii kala gartada daacadaha waliga daacadnimadu waa muhiim marka qof dhalinyaro tahay inaad daacad noqoto waa arrin muhiim ah halkan maxay naga sii daacad ma leeyahay ma daacadaha dadunisa inaad doorkaaga qaadato daacadaha marka hore runta u istaag Soomaaliland beenta iyo runta beenta sareysa waxa qaldana waa intaas runta u istaag haw noolaan sifa kidaysiya adar marxinta baro markaad qof ka noqoto marxinta yaqaan bad ummadana wixii ilaalin karaysa hogaamiyaasha imika mucjisada adduunka ku noqday ma taqaanaan oo kuwee Afrika dad soo qaato Tanzania tag Makavuli adduunyadu waxba lama haba dadku iska dhex jooga dadku dhex lugeynaya mashaakilaadkooda iyo dhibaatooyinkooda doonaya wax ka qabto akoonkiisa lacagta ku jirta buu hal cad sheegay mushaharkiisana waa la yaqaanaa tuu kasta oo ummadda lagu dhex sheegana gacan buu ku qabtay waxaan xoolaha ummadda ugu baahnay mad garanaysa urradii shaqaaluhu ka soo dhex baxay oo intaa yar oo haysta ku filan tahay $30,000 buu ilaamiyay marka waxa laga yaabaa $30,000 buu raali ku yahay markuu madaxweynimada ka dago in iskaga filaanayso because waxaanu aqoonday sidan inuu noolayno qofka Mahatma Gandhi haddaad u noqoto Nelson Mandela haddaad u noqoto hogaamiyayaasha musuqmaasuqa iska dheereeyay ee intooda yar ku filaatay waa dadkii maxay waa kuwii diinta lahaa waa kuwii marxinta yaqaanay waa kuwii sida fudud ee yar u noolaa ee noloshoodu baan qaaliga ahayn Umar ibn Khattab asxaabtiisu iska dhex joogay inankiisu go'a ka amaanaysanayay wuxuu soo galay oo sadaqaysanayay adduunyaduna agtiisa macna kama lahayn hadduu dhulka seexdo iyo hadduu caw ku seexdo isugu mid baahay waliba ilaahay wuxuu u dhawaa markuu dhulka seexdo marka taasina waa taa tusaalayaashaasna waad ka faa'iideysan kartaa dhalinyaro tay wax kasta nimayo oo qorayso iyo wax kasta oo odhanaysa ka fiirso qoraalku waa taariikh waxaad odhanaysaana waa taariikh diiwaankaani kugu jiraysa waliga ayaa laha bari haddaad maanta wax noo sheegto oo bari waxa wax ka duwan aad samayso dadkii ma ahaanayaan waa hubaal dadku inay hortaada keeni doonaan imika soo clips yarmay bilaabin shalay iyo maanta siyaasiyiinteena la soo qaadayo muuqaal uu yiri shalay wuxuu yiri iyo maanta wuxuu yiri soo lama soo qaado kii siiraay shalay caayun ba maanta amaanay mugta kii laha kulmiyo waa mataguma qoray maanta waa channel kii wadani ku laha waa maxral jimba khulada waa xalki ummadani I don't know aan ma garanayo qofku ila waxay ahayd inuu noqdo qof wax aaminsan markiisa ku adag oo hadii ilaahay idamkeeda leeyahay markuu oranaya midaan wariga ka noqonay tahay marka nimayo waxa qoraysaan iyo waxa oranaysaanba waxay ka turjumayaan qofka tahay musuqmaasuqa la iska daayo oo dadku tuug tahay qabyaalada la iska daayo oo dadku qabyaaladista tahay meeday ku soconaysa asaas Soomaaliland kuma soconaysa marka waxaynu qorayno iyo waxaynu oranayno ficilkeena iyo maxay seelanayaan walaalo arrin kale oo muhiim ah ku sheegayay waxaan doonayaa inaad u dul qaadato kala duwanaanshaha fikirka Soomaaliland mushkilad baa jirta dhalinyaradeena haysata kala duwanaanshaha afkaarta iyo ra'yigu waa mushkilad weyn laakiin ilbaxnimaynu u baahanay
waa inaad noqotaa qof awood u leh inaad dhageysan karto afkaaraha iyo fikrada ka soo horjeeda kuwaaga Soomaaliland siday u doodaysaa siday isbedelkay rabto u sameynaysaa dhalinyarada dhexdeeda haddaanad ogolayn idinku kala aragti duwan oo kala afkaar duwan doodayda dhex maraan haddaad u dhageysato ka isku fikirka tiin isku afkaarta tiin maxaad bedelaysaa markaa de adduunyada nolosheedu miyaanay waxa lagu bedelayaa ahayn afkaaro iyo riyo kala duwan oo la rogrogay oo mid la qaatay miyaanay ahayn haddii la rogrogi waayo markaa arrimaha taagan haddii la rogrogi waayo sidoo xalku ku imanaya marka dhalinyarada haddaad tihiin haddaad rabtaan wax hogaamsan haddaad rabtaan nolol wanaagsan samaysataan waa inaad awood u leedahay inaad si adiga lagu dhageysto adiguna waa inaad dhageystaa fikir kasta oo fikirkaaga ka soo horjeeda ilbaxnimada ku jirta walaalow la saaxiib oo la rafiiq saaxiibo wanaagsan kuwa hanka sare leh riyooyinka waaweyn leh noloshana ka calaamadsaday meel aad u durugsan ay ka go'antay in halka ay gaadhaan qofkaas uma wax ka baran kartaa qof maalin walba kula imanaya waan dhoofayaa waan joogayaa beer baan qodanayaa lowgaan ka baranayaa islaamic shariica loo baan baranayaa political science baan baranayaa dhakhtar baan noqonayaa qofkaasi wax aliyaalo wax kugu soo kordhinaya ma jirto isagii baa duulaya baday adduunyadu fishan kama maaranto ahdaaf kama maaranto marka qofku haddaanu sugin ujeedooyinku nolosha ka leeyahay ahdaaftu ka leeyahay himilooyinku ka leeyahay higsigiisa iyo hilaaladiisa haddaanu suntin halku uga socdo nolosha haddaanu intaa garanayn oo maalin walba aad meel u dhaqaaqdo waxay noqonaysaa dad jidka doonta raaco jidul ibu ku geyn halka u socoto taasina ma soconayso de marka saaxiibada wanaagsan ee han kale ee riyooyinka wanaagsan leh la saaxiib wax ka baro kuwa aad u bogto sida wax u hogaamiyaan sida wax u xukumaan sida wax u maamulaan haddaad u bogtay dahabshiil sidoo ku sameeyay dahabshiil company waa inaad research iyo cilmi baaris badan ku samaysaa dahabshiil riyadiisu sida ku timi sidoo kaga mid dhaliyay halku maanta joogo sidoo ku soo gaaray haddaad jeceshahay Dubai sida loo sameeyay ama loo qurxiyay ama loo horumariyay inaad wax ka ogaato akhri buugaagta Maxamed bin Rashid Somah buugaagtiisa akhri ugu fiican ugu jecel waxa la may fiction akhri waxaad fahmi doontaa marka Dubai sida ku sameeyay haddaad isagu ku noqdo sida aniga bay igu yahay kuwad u bogtay halku dhag wuxuu leeyahay ajiiba oo doonay inaad wax ka fahamto tusaale 10 ku siinaya wuxuu yiri what I have achieved in Dubai is not even 5% of what I have in mind for Dubai boqolkiiba 5 kama aha guulaha aan ka soo hooyay Dubai horumarkeedu waxaan ugu riyoonay Dubai macnaheedu waxa weeye Dubai maanta siday tahay 5% isaga uga dhigan tolo markuu 95 ka haray dhameystir si Dubai ka kansa markaa de markaa mala bas ba u baxay dayax malaade hodeeladu dayaxay ku hoolayaan markaa qofku inta Dubai ka duulu mala dayax soo seexanay way wax xaray baan jirin bad inta nolol lagaga taamay magaalo bilcideeda quruxda dhaqaalaha uu sameeyay badana wuxuu leeyahay riyadayda Dubai waxaan ugu riyoonayaa waxaan guulaha aan ka gaadhay Dubai boqolkiiba 5 kama aha waxaan ugu riyoonayaa Dubai inay noqoto 95 ma wali waxay waa kan wada deemka badda dhexdeeda ka sameeyay geedka timirta ama garanaysa wali uu wadaawo maalinba saxarihii cidlada ahaa the green gebigiisii bedelayba marka isaga qaado waxa kale oo iyaduna aad qaadan kartaa boolki gaamaha Rwanda oo isaguna aad tusaale u soo qaadan karto oo maxaad tusaale u soo qaadan kartaa wuxuu madaxweyne wuxuu ka noqday madaxweyne meel ay isku dileen oo Jonas ka dhacay laba qabiil oo wada ahaa wadanka Rwanda leeyahay wuxuu sameeyay wadan qurux badan oo dhaqaalihiisu kobcayo oo tusaale loo soo qaato oo iyo muxuu kale sameeyay magaalada ugu nadiifsan Afrika oo la wada majiiranayo waxa kale tusaale soo qaadan kartaa Lincoln ninka la yiraahdo Singapore sameeyay Mahathir Mohamad ka Malaysia waxa kale tusaale soo qaadan kartaa ku dayan kartaa oo akhri kartaa buugtiisa Nelson Mandela Madiba
oo ummad cadaan iyo madow isaysto South Africa ku heshiin way heshiisiyay halka ugu dambaysa kuwa inoogu mudana Umar ibn Khattab iyo hogaamintii nabigeena subhana alayhi salatu wasalam nabi Maxamed ayaad iyagana akhriye ka taa waxa laga qoray wixii laga qorayna way yaalaan halka ugu dambaysa si aad u gaadho inaad noqoto wadankan hogaamintiisa door ku yeelataan abaabul kula daada beer education waxa la raaso mataqaanaan intii isku diibo wada hadlaysa imaka markaan aanu idin la hadlayo iyo marka mid idin ka mid oo 20 jir ama 30 jir oo idin la hadlayo isku macna ma sameynayso marka qofka kula daadi uu adiga wax ku sheegay macna ku sameynaysa gaara marka wayna abaabusha intii isku daadiba wayna sababshaan si aan marka u noqotaan ummad wanaagsan oo marka Soomaaliland halkii u socoto gaarsiisa waqtigoos ka kooban intaasaan isleeyahay malaaca waa waxda lagu oran karo bini'aadam goor dambe weeye meesha waa inuu kulushahay waxa inta ka badan hadii la soo karaahiyo halka in lagu joojiyo ku fiican tahay Allah waxaan ka barayaa maalin kale iyo madal kale oo isla mawduucana waa mawduuc inta lagu soo koobi karayo maaha araartiisu kaliya waqti ma ka qaadaysa intaasaan kaga baxay hadii qof iyo 2 iyo 3 iyo 4 ay jiraan inay wixii su'aala wixii talaa wixii tusaala idinku ina wax istiraadaan intaana waan ogolaanayaa waliba in aniga su'aali weydiisan waxa ka fiican in ay idinku wax isu sheegtaan oo intaan ka tagay ka guuxaysa aad tiraahdo wana sababtan halkan ay tahay in lagu joojiyo si marka intaan anigu yiri iyo intaad adigu oranayso la isu geeyaa ay habeenka inoo dhameystirto haduu jiro qof expectationkiisa ama wixii uu leeyahay halkan ka filaya aan u oranna waxa rajeenaya dadka imika microphone ka helaa inay waxa shidaya ay doonayaan inay yiraahdaan si walaalkaygaasi ama walaashaydaasina marka wixii ay iga filaysay marka ay u hesho marka waan ka baxay wa salaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh